waxaanu maanta dib u soo celinay shirkaddii Somali Airline oo 34 sano ka hor ka baxday adeega iyo hawada caalamka iyo tan Soomaaliya labadaba waxaanu maanta heshiis kala iibsi ah aanu la bilownay shirkadda Lema Air Group waxaanu ka iibinay laba diyaaradood oo ah Airbus A320 shirkadahaas waxay hawlgelin doonaan haddii alla idmo muddo 2 bilood gudahooda diyaaraddii Somali Airline haddii alla idmo wax weyn bay waxay ka tari doontaa sumcaddii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed waxay wax badan ka tari doontaa shaqaaleynta iyo baagamuudada dadka oo dhalinyarada wax baratay inay shaqo abuur u samayso waa diyaarado ay iibsatay dowladda Soomaaliya oo ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed waana qorshaha xukuumadda dan qaran iyo aragtida madaxweynaha mar dhow indhihiina ku arki doontaan Somali Airline oo ka duulaysa Aadan Cadde International Airport